أفيت صار أفيتين عشر ربعني كان فانت يا أبوه هذا دفت بعدين عندنا مغزي عادي يعني سيارك نقد برا ليش أنا شيء سوق قلم فانت أنا واحد يستنى سوق قلم لو مرة واحد معي يروح بنتا مركزي كان مركز قلم وقار كمده دلين يروح بلي ويلل isugu jira oo si weyn u isticmaalaya maandooriyaha halista ah ee xashiishka iyo calaqa koox wariyaal ah oo ka tirsan Keenan ayaa si qarsoodiya u tagay goobo lagu cabo xashiishka sidoo kale waxaan booqanay dukaamo si cabsi la'aan ah loogu iibiyo calaqa goortii aan tagnay xarumaha si lagu iibiyo xashiishka waxaan kula kulanay dhalinyaro iibinaysa goobo badan oo Muqdisho ah isla markaana isugu jira hoteelo maqaayado iyo goobo kale oo lagu kulmo ayaana loo sheegay in lagu iibiyo calaqa hase yeeshee Keenan waxay booqatay dhismihii hotelkii caanka ahaa ee Curubo oo burbursan iyo taalada daljirka dahsoon oo si weyn loogu isticmaalo maandooriyaha عدة بنا لام عن وضع إنه هالبوس عدة معكينا لام معكينا الجريان جالس مكان دقنا أنت بحبا أنا داروا ميا نكح ولا جري جالس تقعد جري جالس عم دامو لام يجتوا كعكرا دبقنا هذا دير موجودة دبقنا دير جالس جري فيها لأنه دقنا أنت بحبا كمان كم الله أنا وحنود هالبوس دير وبورفو الله أنا ده البوس كان دربي جريان لما مش ما جاوا عندنا وده مغزي بس عادي يعني سيارك نقد برا تنو بوا إلو يريسن فانت هذه عائلة العباء يعني بدك نافلة أوكي دريمي هذه ومدك أنا وقصابة بدونا سيارة عملها كذا يا أدري يا بس مرة عائلة وقصنا الحين إنه صلاة بناني جيبي قادوا يا مو بنان كان تبي ما شرب خبري إلو يبيار تورك جينا تورك تورك guud ahaan maandooriyaha waxa uu halis ku yahay amniga guud ee dalka oo hadda u diyaar garoobaya doorashada baarlamaanka iyo midda madaxtooyada dawladda Soomaaliya ayaa loogu baaqay inay qaado tallaabooyin adag oo wax loogu qabanayo arintan oo halis ku ah amniga iyo caafimaadka bulshada Mahad Weheliye Raan oo bartay amniga ayaa sheegay in haddii aan la qaadin tallaabo degdeg ah oo ku sii faafi karo guri kasta oo Muqdisho ah kadibna uu si weyn u saameyn doono ammaanka guud ee dalka daroogo iyo amni waa xagsi ay isku yihiin oo haddii meesha daroogo ay soo gasho amnigu faraha ka baxaya meesha haddii mar shacabkuna ay bilaabaan in ay daroogo isticmaalaan waxaa meesha ka baxaya amniga iyo kala dambeyn amniga waxyaabaha xagsiga ku ah waxa kamid ah oo daroogada ayaa kamid ah waana qaybta weyn ay ka qaadataa amniga ahaantood mas'uuliyad weyn saaran oo mas'uuliyiinta dawladda saaran tahay waliba gaar ahaan kuwa amniga qaabilsan gaar ahaan markii loo sii dhaadhaco qaabilsan degmada waxyaabahaas oo kale mas'uuliyad gaar ah si saaran oo mas'uuliyadda saaran waxay tahay inay soo taagaan kooda hore intaan maaragtay wax laga qaban qof isticmaala mas'uuliyadda koowaad waxay saaran tahay inay wax ka qabtaan arrinta wadanka keenayo intaan waxba laga qaban dadka adeegsanaya waxa waa in maaragtay la xakameeyo dadka wadanka soo gelinayo muqtidarooyinka oo ka ganacsado iyo meesha ay ka soo galayaan ilaha ay ka soo galaan dalka dadka marka ka ayaa saaran tahay kaliya maaha in maandooriyaha uu halis ku yahay amniga waxaase nafsad ahaan uusan u wanaagsaneyn dadka isticmaala iyo kuwa aan isticmaalin ee ka agdhow goobaha lagu cabo Dr. Bashiir Cabdiraxmaan Diini waxay ugu yeelan kartaa qofka horta caafimaadkiisa way saameynaysaa sababta waxaan qaac ka kooban yahay inkastoo kiimika uu yahay oo qofka nafsadiisa wax yeelanayo marka asaga waxay u saameynaysaa inuu sanbadihiisa oo kale ama lahayn waqti badan oo isticmaalo inuu kansar iyo dhibaatooyin kale oo badan u geysto iyo xanuuno oo aan daawo lahayn uu geysto sidoo kale qofku wuxuu ku saameyn karaa inuu pressurekiisa kiciyo qofka dhiigkar uu qaado oo ka bacdiina stroke uu iska dalaco ama lugi gacan danto ama ay dhacdo dadka ku xeeran marka wuxuu u saameyn karaa second hand waxa la yiraahdo ama gacanta labaad oo qofkii asagoo active aan ahayn oo positive uu qaadanaa hawo ahaan oo qofkii uu qaadanaa dadkii areas ama ku xirnaa taasoo qofkii uu qaadanaa marka dadkii way saameynaysaa saameyn yar maahan markii loo fiirsho caafimaadka hawo mareenkooda qofka way saameynayaan marka qofkii complication badan ama cudurro badan baa laga yaabaa inuu ka qaado sida ugu fudud dhowr jeer oo hore ayay ciidamada amniga meel fagaaraha ay ku gubeen maandooriyaha inkastoo dagaalka dawladda ay kula jirta gaabis yahay marka loo eego sida uu ugu sii faafayo xaafadaha Muqdisho